السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي دان جعلا وادن سلامي وصاحبكينا مهد بشار إبراهيم وكما قاعد راماتي مويني halkaad igala socotaan waa Qarami Media fadlan hadaad nagu cusub tahay markaa ku horeysataan soo booqato subscribe noo saar si aad noola socotaan gabdhaha ku furo haddii muuqaalkeena aad ka heshay like noo saar si asxaabadan u gaarno share u dheh dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabtiidan jeclaa maanta waa maalin shax aan soo diyaarinay shaxdeennii two odds ahayd mar walba aan soo diyaarin jirnay 1.6 ka 1.7 ka marka maalin walba wixii aan soo diyaarin halkan aan soo dhigno oo wixii aan soo falaqaynay oo si wanaagsan aan analyze ugu soo sameynay ahayd marka maanta waxaan wadaa two odds oo buuxo marka inaad ka faa'iideysataan maanta taariikhdu ay tahay 14 bisha koowaad 2022 ayna tahay maalin jimca ah marka inaad ka faa'iideysataan ayaan idin rajeynayaa haddii aad nagu cusub tahay oo markaa kugu horeysay tahay aad soo booqatana subscribe inaad noo saarto si aad noola socotana gambarka aad u furato muuqaalkeena haddii aad ka heshay like inoo saarto sidoo kaleeto waxaan hambalyo u dirayaa shaxdii shalay toole cida laacidii saaratay oo ku guuleysatay oo macnaha lacag fiican saaratay sida aniga oo kaleeto waxa saartay $100 70 waxaan ku guuleystay marka adinkana inaad ka faa'iideysataan maantana $100 aan saartay 200 sugaya haddii aan guuleysano waa kaasa marka inaad mar walba aad guuleysato ayaan halkan diyaar u leenahay marka inaad ka faa'iideystaan ayaan jeclaan lahaa shaxda maanta aan halkan ku soo baahinayo shaxda intaan soo baahin ka hor waxaan mid kale la wadaagayaa misana aan idin sheegayaa cida lacagtii telegramkeena aan ku jirin misana saaxiib aan lahayn dhanka telegramka ayagana shaxa kaleeto aan ku soo baahino waxaan soo dhigaynaa qaybta description-ka halkaas inaad join dhahdaan idin rajeynayaa marka inaad ka faa'iideysataan marka maanta marka shax waxaan wadaa iska yara macquul ah oo two odds ay tahay maanta oddskan waxaan kasoo diyaariyay koornooyinka Crystal Palace oo waxaan ka sugayno 4 koorna iyo Borussia Dortmund oo 5 koorna aan ka sugayno Crystal Palace oo aan ka sugayno 4 koorna iyo Borussia Dortmund oo aan ka sugayno 5 koorno marka dadkan waxaan soo fiirinaynaa sida isugu soo bixi jireen meelaha kala jiraan koornooyinkii kulamada u dambeeyay ka baxay garoonkaas marka maanta aan fiirinaynaa waana soo qiimeynaynaa dhankaas flash score ka aadina marka isla socod wanaagsan awada naga yarham raalli ahaada marka hadda marka waxaan macnaha joognaa German Bundesliga aan ka soo qaadanaynaa waxa waaye Borussia Dortmund oo fiirinaynaa marka meesha ay 5 kulan u dambeysay isku baxaan ayay Freiburg kaalmaha kala jiraan horta 5 kulan ee u dambeysay 2 kulan kamid ah waxa badisay Borussia Dortmund 2 kulan kamid ahna Freiburg ayaa badisay mid kamid ahna Braga ay galeen marka kulankii 5 kulan u dambeysay ay dhashay Freiburg 2 kamid ah Braga ay gashay 2 kamid ah way badisay mid kamid ahna laga badiyay sidoo kaleeto haddii aan fiirino Borussia Dortmund 3 kamid ah way badisay mid kamid ah Braga ay gashay mid kamid ahna waa laga badiyay kala sareyntooda haddii aan hal mar soo fiirino Borussia Dortmund kaalinta labaad ay ku jirtaa oo 37 dhibcood ay wadataa 18 ciyaarood dhashay 44 gool ee dhalisay 38 gool laga dhaliyay Freiburg 30 dhibcood ay wadataa 10 iyo 8 ciyaarood ay dhashay 30 gool ay dhalisay 18 gool waa laga dhaliyay marka haddii aan fiirino dhankaas iyo macnaha koornooyinka 5 kulan ee isku u dambeysay macnaha kulanka 2 kulan u dambeysay fiirinaynaa koornooyinka wixii ka baxay horta kulankii u dambeeyay Borussia Dortmund isku baxaan 10 koorna ayay heshay Borussia Dortmund waa u jeedaan meeshan 10 ah 10 koorna ayay heshay Borussia Dortmund marka kulanka u dambeeyay ay labadooda isku baxaan waay kulanka xigay haddii aan fiirino ayadana Borussia Dortmund laga badinayay labadooda hal koorna bis ay heleen hal koorna ciyaarto idil hal koorna ayay heleen marka kulankii u dambeeyay ay dheesho Borussia Dortmund haddii aan fiirino walaha koorna ay keentay
kow iyo toban koorna ayay heshay Borussia Dortmund. Waa kana kulanka u dambeeyay 11 koorna ayay heshay oo ay u bixisay Inter Frankfurt oo comeback ay ku sameynaysay. sidoo kale kulankii ku xigay hadii aan fiirino oo Hertha ay u bixisay Borussia laga badinayo 5 koorna ayay heshay 5 koorna ayay heshay Borussia Dortmund. Waa kana 5 koorna ayay heshay. marka Borussia Dortmund waxa u maleysaa macnaha in macquul ay tahay koornooyinkan ka qaadanay oo ah inay 5 koorna garoonkaas ka baxdo waliba home ayadoo dheelayso. marka waan ka warsugeynaa insha Allah tan halkaas ay u gudbayna. haddana waxaan fiirinayaa Brighton iyo Crystal Palace. Brighton iyo Crystal Palace waxay dheelayaan English Premier League. English Premier League waa aqaantiin oo nilma sheegayo weeraryahanada waa macnaha waa meelaha ugu badan ee koornooyinka laga helo waay. marka hadii aan fiirino shantii kulan ee isku dambeysay isku baxaan, laba kamid ah Brighton aan badisay, saddex kamid ahna bareeja ayay ku dhamaatay. Crystal Palace shantii kulan ee u dambeysay ay ciyaarto laba kamid ah way badisay, laba kamid ah laga badiyay, mid kamid ahna bareeja ayay gashay. shantii kulan ee u dambeysay Brighton ay ciyaarto laba kamid ah bareeja ay gashay, laba kamid ah waa ay badisay, mid kamid ahna waa laga badiyay. marka hadii aan fiirino kala sareyntooda Crystal Palace kaalinta 12aad ayay ku jirtaa, 20 ciyaarood ay dhashay, 29 gool ayay dhalisay, 30 gool waa laga dhaliyay, 23 dhibcood ayay wadataa. Brighton kaalinta 9aad ay ku jirtaa, 19 ciyaarood ay dhashay, 20 gool ayay dhalisay, 20 gool waa laga dhaliyay, 27 dhibcood ayay wadataa. marka hadii aan fiirino dhankaas iyo macnaha koornooyinka labadooda anaga hadda waxaan qaadanay Crystal Palace ayaan 5 koorna ka qaadanay. labada kulan u dambeysay hadii aan fiirino siba kulanka u dambeysay 4 koorna ayaan ka qaadanay. Crystal Palace ayaa kulanka u dambeeyay ee isku baxaan waxay heshay 6 koorna ayay heshay. marka macnaha weeraryahaneeda ayaa macquul ah waana imaan kartaa koornooyin. marka kulankii kale xigay hadii aan fiirino Brighton waxay heshay 13, tanna waxay heshay eber hal kulan. macnaha waxay isku baxeen 2021 bisha 2 taariikhda markay 22. marka Crystal Palace waxay macnaha hadii aan fiirino kulamadii u dambeysay ciyaarto oo kulanka u dambeeyay Millwall ay ku dheelaysay ciyaaraysa aan fiirino Crystal Palace 4 koorna ayay heshay, 4 koorna ayay heshay. marka hadii aan fiirino kulan Premier League ciyaarayskaas League Cup waay West Ham markay u bixisay oo West Ham ay ka soo badinaysay. hadii aan fiirino stageskeeda koornooyinka 9 koorna ayay heshay, 9 koorna ayay heshay. marka caawa kama waan doono koornooyin macnaha oo ah 4 koorna kama waan doono. marka labadooda waa waxaan dhihi karnaa koornooyin waa keeni karaan. midna 5 koorna ka sugayno Borussia Dortmund iyo mid oo aan ka sugayno Brighton iyo Crystal Palace oo ayadana 4 koorna ka sugayno. marka waa macquul wax walbana waa ka soo bixi karaan. marka inaad ka faa'iideysataan ayaan idin rajeynayaa. marka haddana waxaan fiirinaynaa koodka in siin doona shaxdan koodkeeda inaad ka faa'iideysataan ayaan idin rajeynayaa. ani ahaan $100 saartay, adinkan wixii aad saaranaysiin adinka idin anfacaysaa. marka odds-kana waxa waaye waa ujeedaan 2 odds bo shab ah waaye inaad ka faa'iideysataan ayaan idin rajeynayaa. koodka waxa waaye F5RT3 fadlan haddaad nagu cusub tahay oo markaa kugu horreysay aad soo booqato subscribe noo saar si aad noola socotaan gambaraalka furo. haddii muuqaalkeena aad ka heshay like noo saar si asxaab badan u gaarno share u dheh. dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabtiidan jeclahay. ha hilmaamina inaad telegramkeena aad soo dhacdaan join qaybta description-ka ayaad ka heli doontaan. waa mahadsantiin insha Allah guul iyo gobonimo idin rajeynaya asxaab.